jigjiga inta u dhaxaysa magaalooyinka Wajaale iyo Jigjiga ayaa waxa laga dareemayaa culays xooggan kaasi oo ku imanaya dadka isu safraya una kala gudbaya magaalooyinka Hargeysa ama Wajaale iyo sidoo kale Jigjiga dhanka kale xuduudda Itoobiya iyo Somaliland xilligan waxa ku yimid culays fara badan kaasi oo ku imanaya dadka safraya sidoo kale ganacsatada iyo alaabooyinka halkaas laga gudbinayo horay sidan uma ahaan jirin haddaba maxaa sababay in arrintan halkaas ka dhacdo sidoo kale maxay tahay arrinta isirsifaynta ee halkaas laga wado xogta rasmiga ah ee arrintaasi ku saabsan ayaanu halkan kugula wadaagi doonaa daawada hadday tahay markii ugu horeysay aanu soo booqatano soo raac sidoo kalena muuqaalka si share garayso meel dheer u gaadho waa hagaag aan ku bilaabay inta u dhaxaysa magaalooyinka Jigjiga iyo sidoo kale magaalada Wajaale waxa ka socda dhaqdhaqaaq xooggan kaasi oo ay ka wadaan ciidamada liyu booliska ee gaarka isla markaasna dadka isu safraya labada magaalo dhexdooda ay u dhigteen checkpoint iyo sidoo kale kantaroolahan halkaas lagu ogeyn kantaroolada dadka waxa lagu baariyaa guud ahaanba dadka iyo sidoo kale qalabka ay sitaan taasi oo caadiga dhaqan ka ahayd isla markaasna ammaanka gobolka iyo sidoo kale dalkuba ku jiro balse arrinta xilligan ku soo korodhay muhiimka ayaa waxay tahay in la haybsanayo qof kasto halkaas maraya isla markaasna la weydiinayo qabiilka uu yahay iyo lafta uu ka sii yahay lagagana qoriyo buug dadka qaar markay sheegtaan haybaha qaar waxa ku dhacaya in laga reebo baabuurta ay saaran yihiin isla markaasna la galo xisaab dheeraad ah sidoo kale wararkan ku helina rasmiga ayaa waxay sheegayaan in guud ahaan dad halkaas ku sugnaa oo wadadaas isticmaalayay xilligan ay ku sugan yihiin xabsida Jigjiga iyo sidoo kale deegaano kale hoostaga kuwaas ay u taxaabeen ciidamada liyu booliska arrintan ayaa haddaba waxay daba socotay kadib markii dagaal xooggan uu ku dhex maray dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska deegaanka Dacwaley halkaas oo isku farasaareen beel ka mid ah beelaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada liyu booliska oo hal beel u badnaa tan ayaa sababtay in xaaladdu ay cirka isku sii shareerto isla markaasna ay u wareegto dhankaas iyo deegaanada Jigjiga iyo sidoo kale Wajaale dhanka kale gudaha magaalada Jigjiga waxa laga xidhay dad tiro badan kuwaas oo hayb ahaan ka soo jeeday deegaanada Somaliland isla markaasna wararku ay sheegayaan in ciidamada liyu booliska u beegsanayaan haybta iyo sidoo kale reerka ay ka soo jeedaan culaysyo fara badan ayaa xilligan soo wajahaya dadka ka soo jeeda deegaanada Somaliland ee xilligan ku sugan gudaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dhawaan ay ahayd markii madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar uu ka hadlay gudaha dawladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya isla markaasna uu sheegay inay jiraan dad la dagaalamayo qolfofkii Maxamed Siyaad Barre taasi aad moodeysay inuu hadalkiisu ku socday beel gaara iyo sidoo kale reer gaar oo si toos ah madaxweynuhu u beegsanayo dhanka kale madaxweynaha ayaa mar labaad ku celiyay in cid kasto isku dayday ammaanka inay faraheeda ku qaadato isla markaasna arrinta ay doonayso ay ku xalliso xoog iyo sidoo kale muquunsi in ciidamada liyu booliska gaarka ay hubka dhigisna ku sameeyaan amar qabaan haddaba xilligan deegaanadii dagaaladu ka dhaceen ee arrintan oo dhan ka soo bilaabantay isla markaasna ifafaalaheedu ay ka soo ifbaxeen ayaad moodaa xilligan in guud ahaanba ay ka baxday gacanta ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida isla markaasna go'aanka Mustafa Cagjar oo ka socon waayay awgii uu keenay culaysidan kala duwan go'aanka inay iskaga baxaan ciidamada liyu booliska laga saaro deegaanadaas ayaa waxa ka dambeysay kadib markii wasaaradda amniga gudaha Somaliland waraaqo kala duwan ay u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Itoobiya isla markaasna ay u sheegtay in dadka halkaas lagu xasuuqaya yihiin dad ka soo jeeda deegaanada Somaliland xilligan deegaanada colaadu ka dhacday guud ahaanba waxa gacanta ku haya ciidamada dawladda dhexe ee Itoobiya wixii ka soo kordhay waxa kula wadaagi doonaa muuqaalada kuwan xiga